kusoo dhawow barnaamijka codka Soomaaliyeed magaca walaal walaal waxa la yiraahdaa Fahiima Guuled Cilmi ay Fahiima xageed ka soo hadlaysaa walaal London walaal okay maxaad jeceshahay barnaamijka inaad kusoo kordhiso walaal waxaan rabay inaan kusoo kordhiyo barnaamijka insha Allah dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoo laga hadlayaa ogaay hooyooyinka oo aabayaasha eeda la saaray inta badan sax walaal waxaan aaminsanahay way jiraan aabayaal eed badan laakiin waxaan aaminsanahay in hooyadu ay qaybta ugu badan tahay guriga haye ayna ka caawin karto akhlaaqda tarbiyada ilmaha waxyaabo badan oo hooyooyinka laga rabay hadda booskoodi ka maqan oo dayacan haye nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri al-ummu madrasa haye marka hooyada waxay diyaarin kartaa haday ku talagasho shacbi dhan oo dayib al-akhlaaq ama fahantin marka hooyooyinka waxaan maaragtay leeyahay adinku xooga saara intii la idinka rabay ilmihiina tarbiyada xitaa xagga mujtamaca waxaanu ka dhimanaa inaan ilmaheena barno naftooda inay caawiyaan guriyahooda ka shaqeystaan waxay qabsan karaan qabsadaan ma fahantin لأن جبر 18 جرت أما ويل 18 جرو وحركة إذا هويدي فدي إيشها وكينيسو وحكست يوسف قبنايسو أيده هدي حرمسنت هنا ما أنت وسم حبت بكير بيا وكيرين marka waxaan aaminsanahay inay waxyaabo badan oo xitaa hooyooyinka ay lahaayeen ay dayacan yihiin oo akhlaaqiyadka cunug inuu gurigiisa hagaagsado inuu wixiisa qabsado inuu wax barto inuu iscaawiyo waxyaabo badan ay tahay marka waxaan leeyahay aabayaasha ma aragtay pressure badan ha laga yareeyo ayaga hadii ay banaanka ka soo shaqeeyaan insight hooyada iskala inay ma aragtay intii ay ihtimaam ku siinto ay siiso okay aad baad ma santaa walaal fikradda aad soo dhiibatay فهمه هذا مدن إن شاء الله برنامج كان ولا سو حرير زونا إن شاء الله إن شاء الله دولا يراد هذا ما أي ولا جزاك الله خير برنامج في أنا سمعتين أب وما سنتين هذا مدن جزاك الله هاي ولا السلام عليكم السلام عليكم كسر برنامج قعدة الصومالية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا المقعة أنا مقعة مدر فوجئ كي ولا الحاجات كسر الله يسا كسر الله مالي لندن إن فكرتك كسو كردستان لايت. ديو فكرتها كردستان حتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلام يا قلدينا يونسيرسل. وعليكم السلام ورحمة الله. وبرنامج في عن وحنا خبيكلي هنا كردستان. dadka dhalinyarada ee Soomaalida ee community-ga sheeganaya ama ka shaqeeya ama ku hawlan community-ga waxa looga baahan yahay inay exactly iyagu laftigooda jidka ay ku socdaan uusan noqon kaliya mid marka idaacadaha laga sheekeenayo iyo marka meelaha stage laga hadlayo wanaagsan hadalkoodu laakiin aan ficil lahayn macnaheedu waxa uga dan leeyahay Soomaalida ay u baahan orientation reer London mana arkin dad community oo guryaha ugu tagay dadkii ama orientation sameeynaya dadkii wacyi gelinaya ama qaadka han noqoto kala hadlaya ama caruurta daroogada isticmaalaya ama dadka Soomaaliyeed dhalinyarada ee lumay wacyi gelinaya ma aragno laakiin waxa aragnaa dad un marka stage-ka iyo idaacada iyo meelaha kala ka hadla wana dhaqan guud oo Soomaali oo dhan macnaheedu runtii aniga I'm sorry I don't want to be negative laakiin ficil baa loo baahan yahay fikirkeygu wuxuu ku saleysan yahay bal nimankiina waxa garadka oo jaamacadaha sheeganaya inay ka soo baxeen bal ficil sameeya oo waxa sameeysan orientation dadka aad u tageysaan oo ka dhaadhicinaysaan oo la hadlaysaan hadii ingiriisku baalkii qolooyinka qaabilsan inay lacag siiyaan dadka community-ga hadii idin siiyaan iyo hadii idin siinba waa in la helaa dad wax garad oo wax bartay oo voluntarily dadkii Soomaalida u istaagan inay wax ka dhaadhiciyaan orientation siiyaan wax ka dhaadhiciyaan mobilize gareeyaan oo kiciyaan dadkii oo wacyi geliyaan waxaan naqaanaa dad badan oo sharciga aan aqoonin qaxooti ah waxaan ognahay dad badan oo mataqaana lumay oo aan aqoon cudurka iyo dhibaatada jaadka uu ku leeyahay iyo effective uu ku leeyahay reerka Soomaaliyeed waxaan ognahay caruur mataqaana daroogada isticmaalaya suuqa ku jirta oo hadda xabsiyada Soomaalida iyaga ugu badan dhalinyarada marka wacyi gelintii maqanay bal nimankiina wax sheeganaya inay wax barteen oo aqoonyahanka ah ee community-yadii hor istaagay oo dadkii matalaya bal dadka wacyi geliya weedar lacag leedin siiyo iyo haddaan lacag leedin siinba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daba su-aashii uu inoo soo gudbiyey madar aanu weydiino Ibrahim su-aashaasi maxaad ka odhan lahayd madar uu mahadsan yahay horta kow anigu kuma wada hadlayo magaca communitieska ama dadka aad sheegtay
laakiin waxaan doonaya inaan u sheego ururkan hadda la sameeyey London Somali Youth Forum waa urur cusub ka duwan ururadii hore jiray dhalinyar sida aad adigu wax xustay aqoon ama karti ama maskax ama awood waxay doonaan baa lahaadaan ee ku jira waqtigoogii qaaliga ahaa u soo huray madar waxaan u malaynayaa xaafadu degan yahay inuu ka aragtaa xaafado badan oo ay dadka Soomaalida degan yihiin ay ku diirsadeen hawl badanna la sii wadi doono arrinta dadka community-ga haysta way jiraan dad wax qabta oo community-ga kamid ah iyo niman shindada waaweyn sita labadaba way isku jiraan dadka bini'aadamkii laakiin waxaan ku dhiirigelinayaa wax qabad dhaba in ummadda la siiyo waxna loo taro ta kale labaad aqoonta uu sheegay walaalkeen madar waxa weeye qof kasto aqoon-yahana aqoontiisa ama alif ba aha ahaato ama baataaja aha ahaato ama sadway ha ahaato intuu doonaha lahaada inuu wixii uu ku caawin karo uu ku caawiyo uu ku taro dadka kama aqoon badnin kama karti badnin kama karaamo badnin adigoo bax tag oo qabo wixii aad samayn karto adigoo la kaashanaya dadyoga kale waa lagu baahan yahay waana ku mahadsantahay fikradaada soo dhawo barnaamijka codka Soomaaliyeed assalaamu calaykum walaal waxaan ka soo wacayaa London magacaygu waxa la yiraahdaa Khatro aye Khatro maxaad ku soo kordhinaysaa barnaamijkan codka Soomaaliyeed runtii waa barnaamijkan aad iyo aad ayaan uga helay weligayna waxaan raadinayay inaad ka hadashaan arrimaha dhalinyarada Soomaaliyeed xasiyada ku jira iyo arrimahan aadka u faraha badan hadda waad ka hadlaysaan kale aniga qadar ahaan wafir aad u wanaagsan waxaana idin leeyahay sii wada intaad sii wadi kartaan kale waad ku fikirteen macnaha fikradan ah inaad barnaamijkan soo gudbisaan waxay isu soo dubaysaa dadkii Soomaaliyeed fikradii ay qabeen oo kala duwan inay ka dhiibtaan halka anaka aad baad ugu mahadsantihiin waxaan weliba aan jeclaan lahaa haddii aan fursad u helo mar inaan meesha imaado macnaha aan aniga waqtigaygu ka hadlo waad ka hadli kartaa walaal waan ku ogolnahay inaad timaadid xafiiska ama studio-ga televisionka Universal ee magaalada London waan kugu soo casuumeynaa marka insha Allah waxaad samaysaa email inoo soo dir oo aad maaragtay magacaaga iyo addresska iyo telephone numberkaaga aad noogu soo qoraysid annaga kula soo xiriireen waan kugu soo casuumi doonaa insha Allah ta'ala walaalo waxaan aad iyo aad u xiiseynayaa caruurta for example ku jira xasiyada arintaadan aad u danaynaya bal arintaas waxaan kugu wareejinayaa Maxamed ayaga maaragtay dhalinyarada Somali Youth Forum ayaga maaragtay xiriir la leh dhinaca markii timaado jeelalka iyo caruurta ku jirto bal Maxamed aan kugu wareejiyo sidoo ku caawin karo السلام عليكم. وعليكم السلام. والله أنا تعرف كان وحن هذا يشهر وحى ذاتك إنه عيل هذا شيلاش وحى عقوب بدن للنيرة الصومالية بركة هالكسبان دوري عن إيران حتى كيرسحوا وحى إنه أولاً كنا للنيرة ميلها قار كود صومالي دو عاد بيت شيلاش وجودشران لكن هاد كمان بدنا دات كان أما وطن كانوا بشيء أما دات كلا جانب كي كلنا الوطن كان بكا هاد تطاوع إن نستفي عنه يرسحنا لكن وادب مجتمعين هاي ستخاص هانا دين الصوماليين هاي ونباهن إن عد كستابعي وحكا قبط وأنا هدي عاد مركا عاد أباهن تهاي إن عاد أرنكا عاد واحد بدن عاد كسي وقاتو أما عاد لفتكا عاد بوقتو شيلاشا labaduba waa suurtagal nala soo xidhiid sidii nabiil sheegay ma insha Allah ta'ala walaalo ana hadda sheekada ku wada waxaan u dhawahay waxaan deganahay meel Saudi-istiga xabsiga Balmash xagtiisa sax ayaan deganahay marka ilmo yar oo teenage oo caruuraha Soomaalida oo macnaha xabsiyada ka dhalgay laglaagna waan haystaa sax marka waan iska jeclaan lahaa maaragtay wiil yar baan haystaa iyo gabdho yar oo laglaag marka waxaan iska jeclaan lahaa ilmihiina inay arkaan ilmaha kale oo walaalahooda oo lamid oo isku luqada yihiin oo isku diinta yihiin oo macnaha inay arkaan ayaga waqtigooda ilaa ilmihi haddii guriga la isaga hayo xataa aan la tusinin ko ayaga lamidka oo macnaha ku diinta oo ku dhaqanka oo ku lahjada oo dhibaataysan waxay iska noqonayaan wax waal oo guriga la isaga hayo absolutely arrimahan laftirkeegu aanu doonayna inaanu dadka tusno